wanaagsan habeenkan kulankan aad iyo aadka muhiimka noogu ah xafladan intaas kadib waxaan rabaa munaasabadda intaanan gelin inaan halkaa uga mahad celiyo kooxda fanaaniinta oo runtii noo soo bandhigay heeso qiiro leh xamaasad leh dareen leh caawana ku habboona xuska iyo habeenkii aan joogno waxaan sidoo kale u mahad celinayaa guddigii iyo mas-uuliyiintii soo qabanqaabiyey xafladdan sharafta badan waxaan rabaa halkan inaan hambaliyo iyo bogaadin uga diro dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba dal iyo dibad aan ugu hambaliyeeyo habeenkaa weyn maalintaa weyn oo caaway aan u dabaaldegayno ee 1 Luulyo waxaan sidoo kale halkan inaan duco iyo bogaadin hambalyo uga diro geesiyaashii dhiigooda ku soo waraabiyey munaasabadda qaaliga ee caawa u dabaaldegayna asbuucii xorriyadda waxaan leeyahay mar kale waa isu wada hambalyeynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba gaar ahaan shacab weynaha reer Galmudug meel ay joogaanba waxaan leenahay hambaliyo asbuucii xorriyadda oo caawa u dambayso 1 Luulyo intaa kadib walaalayaal mudanayaal iyo marweyn waxaad ogtihiin munaasabaddan caawa u dabaaldegayno ee aad iyo aadka u weyn ee qaaliga ku ah dhammaan geyiga Soomaaliyeed waxaa u istaagay geesiyaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo maalintaas u istaagay in ay Soomaaliya ka xorowdo gumaystihii halkan dadka dhalinyaradaasi dhan walba maanta dadka jooga runtii way ka yaraayeen da'dooda yareed aqoontaa yareed waxay haystaana yareed haddana sidaasoo ay tahay waxay goosteen inay ka gudbaan dhammaan xayndaabkii uu gumaystuhu u dhigay ummadda Soomaaliyeed oo uu ku diidanaa xorriyaddooda xayndaabkaas waxaa ugu weynaa oo gumaystuhu isticmaalayay waxaa kow ka ahaa qabyaaladda waxaa laba ka ahaa inuu dano iyo masaalix yaryar oo gaargaara u sheego qof kasta oo isku taaga ama ku howlan ama kuwa uu sameeyo qofkii u dhaqdhaqaaqa xorriyadda caqabad ku noqda waa ka gudbeen caqabadahaas fakarka soo horjeeda oo diidanaa xorriyadda oo dad Soomaaliyeed u adeegayeenna waa jira maantana waa jira maahan inay xorriyad noo diidi karaan maanta waxay noo diidayaan horumarka waxay noo diidayaan waxay u adeegayaan cadowguna mar walbuu joogaa asagoo qori wata iyo asagoo aan qori wadanba waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba gacmaha isqabsada cadowgana iska xoreeya